بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول لك مجا محايدة يحفزك مدحونا كحجينك يجدد عبارها وحنا هلكن مركه وجم هالعلنية حكومة الصومالي الآن وجامينا مدحونا أحمد محمد محمود سيرايو يمدحونا كحجينك عبد الرحمن عبد الله السيلعي وياكو باقي dhibaatada dadka shacabka xaggan galbeedka Soomaaliland ay abaartu maanta ay dhibaataysay gargaarkii u horeeyay xukuumaddu iyadoo baaq jeedisay haddana tallaabadii u horeysay qaaday maantana aan joogno maxay ahayday tuulada maxay ahayday wadajir kalabayd degmada Saylac aan joogno galabta anagoo meelo badan saaka ka soo qaybinay galabtana halkan aan joogno waxaan uga mahad celinaynaa shacabka kalabayd iyaguna na soo dhaweeyay sida sharafta lana maxay ahayday alaabtii inay ku qaybsadaan naga aqbalay wixii yaraa koobnaa iyo wixii yaraa soo gaaray marka baaqi u horeeyay xukuumadda weeyaan waxaanu ka codsanaynaa maxay ahayday ganacsatadii qurba joogii iyo shacabkii reer Soomaaliland intii hadhay iyo hay'adihii caalamiga ah iyo kuwii islaamigaaba inay iyaguna maanta ku daydaan tallaabada ay xukuumaddu qaaday oo dadkooda walaalaha baahida abaaruhu aad u saameysay ay soo gaarsiiyaan marka waxaan ku soo wareejinaynaa dadkii maxay ahayday ay soo gaadhay maxay ahayday mucaawanadu inay iyaguna kelmadooda ay ka dhahaan halkan horta waxaan salaamaynaa haddaan nahay beesha kalabaydhka madaxweynaha maxaan ku dhahday Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo oriyooyinkooga waxa kale oo salaamaynaa maayirkiisa oo nala jooga iyo afayeenkii Zakariya oo noo keenay deeq maanta aad loogu geestaloolo waxaan halkan u joognaa inaan qaadano deeqdii ay noo soo dirtay dawladda Somaliland dhibaatada wadanka Somaliland geesaha xeebta ka taagan waa tu balaaran haddaan wax ka sheego aad bay u xeel dheer tahay waxa ay u daran tahay sida loo og yahay buurleyda wixii ka tacleeya okay waxa weeyaan waxaan haddana aan baaq u jeedinaynaa hay'adaha caalamiga iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo dawladda iyo qurba joogta ayo ganacsatada Somaliland ee walaalahaya ina ay sidaa iyo si ka fiican ay noogu soo gurmadaan ay u tiiriyaan dadkooda ay abaaru waxyeeleeyeen ee fidib wassalaamu calaykum waraxmatullaah wallahi barakaatu waxaan maanta alaabta halka noo keenay ee ragga madaxdii ay noo keenay boqortooyada ay noo keeneen waan gudoonay boqolkii iyo boqol allaha gudoomo الله ugu mahadnaqo inta noo keetana Allah gargaaro xoog Allah u adkeeyo abaaraha fool xubaan haysta adduunku naga dhamaaday maanta inta boqolkiiba boqol waan gudoonay waan jecelahay ana inaana noo soo biriyo inaana noo soo fiicneeyo inaana noo soo raganabeeyo ayaabaan doonaynaa waxa weeyin inta noo keentay iyo inta nagu dadaashay inta xooga bacadka noo joogta intaan ma garanaysaa aan alla saddex daraarood aan u joognay ee quudaynay waan ka gudoonay waana dharagnay dhaha waan ka dharagnay afkana waan ka dharagnay waan gudoonsanahay dad Soomaaliland ee waxa fiicana siisay waanu mahad celinaynaa ilaahay mahadiha ka gaadhay yagana magariha ka gaadho wayna dhargiyana Allah dhargiyo لكن نوغدغو تبارك إلهي نوغدغو راشنك أي نسيسنا وانكم محقبنا إن نوصل بيرسنا واندوناينا سيدا دولة ذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم ولي waxaan ku jirnaa maxaahiday raashin qaybintii dadka abaaruhu ay saameeyeen xaggan galbeedka sidii saaka waagu u bariyo waxaan ka soo bilownay tuulooyin kala duwan fiqi aadan sheekh waare kala bayd hadda qoraxdii sii dhacaysana waxaan taaganahay Xuseen marka halkana waxaan soo gaarsiinay wax la wixii Ilaahay uga qoray markaan eegnay wixii aan sinday iyo baahidii dadku oo kala duwanay marka u horeysay Ilaahay baa mahad leh intaas oo dhan oo rafaad u soo marnay iyo daal iyo wixiiba inaan haddana halkan aan ku soo gaarnay maxaaday nabad qab maxay ahayday waxaana kaloon u mahadnaqaynaa xukuumadda Somaliland ee garwadanka ka yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland iyo anoo ku hadlay magaca xafiiska madaxweyne ku-xigeenka iyo guddida abaaraha oo hawshii sidii loogu talagalay ee guddida abaaraha ee maxay ahayday madaxweyne ku-xigeenku ka yahay gudoomiyaha habka qorshihii loo dejiyay aanu ku soconno
inkastoo dadkii iyo maxay ahayd wixii aanu keenay aad iyo aad ay u kala badan yihiin oo si aad daawan doontiinba ay qoysaskii iyo abaaraha dadka saameeyay ay aad u badan tahay marka waxaan halkan uga mahadcelinaynaa mar kale xukuumaddii Somaliland iyo maxay ahayd hay'adii maxay ahayd islaamiga ahayd International Islamic Relief ka ahayd iyadna timirta xogaaga timirta ku soo dartay baabuurtii u dambeeyay ayaanu u mahadcelinaynaa